bal ka waran haddii manoolayaashu ay hadli lahaayeen. kow barkintu waxa ay oran lahayd bes naga dhaha ilmadiina ama oohintiina ayaa inagu filan inaga dulqaada culayska madaxyadiina si aan u neefsanno. labo qalinku waxa uu oran lahaa waxaan ku hadlay afka qalbiyada iyo carabka, waxaan ku hadlay afka dadka la dulmiyey, waxaan ku hadlay waxa laabtaada gubaya. saddex warqaddu waxa ay oran lahayd waa idilaaciday kadib markii aad i isticmaashay, haddii aadan ii baahnayn ha i cunin, dhagaxa waad ka adag tahay. afar ubaxyadu waxay oran lahaayeen waxaa la ina siiyey kuwa aan inoo qalmin malaayiin jeer. shan dhagaxu waxa uu ku hadli lahaa ha igu tilmaamina qalbiyada qarriban ee daalimiinta ah, anigu weligay cidna ma dulmin. daruurtu waxay oran lahayd anigu waan ooyaa, idinkuna waad ku raaxaysataan oo waad ku qososhaan ilintayda. lix dhulku waxa uu ku hadli lahaa cag walbaahi waxa ay ku tumataa laabtayda, deedna way iska tagtaa weliba iyada oo igu sii tumanaysa. toddobo sigaarku waxa uu oran lahaa waxaad noo gubtaan sida aad nafihiinna u dejisaan, innagu yaan gubnaa si aan u dejinno nafaheenna. siddeed rasaastu waxay oran lahayd innagu wax dembi ah ma lihin. sagaal sariirta waynu ka daalnay xambaaridda murugadiinna. toban faraantigu waxa uu ku hadli lahaa mar walba waxaan marmarsiyo u ahaa isku xirka kuwa qalbiyadoodu kala fog yahay. fadlan haddii aad muuqaalkan ka heshay like saar, sidoo kalena usii gudbi asxaabtaada kale oo sheerta ama koobi linkiga taabo. mahadsanid.